كي ولالهن عربيد أي صاحب كاهين ولا هين كتاريخ قال هين أي سكود عين سقون صدين مشكلة الدحية إذا كان عضي Soomaaliya wati qaadatay doorka dhaxdhaxaadka runtiina dawladdu waxay ahayd mowqif ay aad uga fiirsatay waqtiga xukuumadda kama mid ahayn laakiin waxaan ogaa inuu yahay mowqif cadaalad ah kulanto waxaan daawadalkuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka ee ogaal media qodobada wararkeena waxaa ka mid noqon doona musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka codsaday dadka Soomaaliyeed in laga taageero dhaqaalaha doorashadu ku geliyo General Galaalna waxa uu fariin culus u diray beelaha maanta ku shira magaalada Muqdisho gaar ahaan beesha Hawiye isagoo sheegay in aan loo baahnayn buu yiri shirar noocan ay ka dhacaan Muqdisho dawladda qadarna waxa ay taageero siinaysaa bila Soomaaliya xilli dalku geliyo doorasho iyo dawladda Soomaaliya oo guul ka soo heeday khilaafkii wadamada khaliijka xilli maanta ay dalalka Sacuudiga iyo Qatar ay ku heshiiyeen gudaha dalkaasi Sacuudi Carabiya faahfaahin arintaas ku saabsan ayaanu dabcan barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa qaybaha dambe ee isla wararka caawa haddii aanu daawadal ku bilownay hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa uu weydiistay shacabka Soomaaliyeed in laga taageero dhaqaalaha ku baxaya olaha doorashada ee dalka codsigan oo uu soo dhigay bartiisa Facebook iyo waxa uu cusub olaha doorashada Soomaaliya isagoo ku sheegay in aan loo baahnayn in la taageero buu yiri laga raadsado buu in taageero laga raadsado dalka shisheeye sida musharaxiinta qaar ay sameeyaan musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaana ku tilmaamay xisbiga uu hogaamiyuu yahay mid ka yimid una yimid shacabka Soomaaliyeed uuna weydiisanayo taageero dhaqaale ay ku galaan doorashada dalka ka dhacaysa isla sanadkan waxa uu hadalkiisa ku yiri waxa ayaan daraha buu yiri in la caadeystay ku faanida taageero ajnabi iyo dhaqaale laga helo dawladda shisheeye taasoo keentay buu yiri in cid kasta oo doorashada ku soo baxdo uu maxbuus u noqdo cidii taageertay go'aankeeda anaka ka duuleena inaan ka xorowno taageerada iyo gacan horsiga ajnabiga iyo go'aankeena nalal yeeshaan ayaan waxaan ka codsanayaa buu yiri shacabka Soomaaliyeed inay dhaqaale nagu taageeraan qof walbana uu karaankiisa nagu taageero si looga madax banaanaado talinta shisheeye musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaana sameeyay xisaabaad lacagaha lagu soo shubayo isagoona u mahadceliyay taageerayaasha xisbiga wadajir oo uu horay u taageeriyay ugu dambeyntiina waxa uu ugu baaqay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya inay taageero garab istaag weydiistaan shacabkooda isla markaana aysan taageero weydiisan dalal shisheeye oo goor dambe maxbuus loo noqonayo waxaana arintani ay tahay mid saameyn xooggan ku yeelan karta musharaxiinta qaar maadaama siyaasadda Soomaaliya inta badan ay ku dhisan tahay taageero dalalka qaar ee caalamka ay ugu badan yihiin dalalka wadamada Carabta dhanka kale General Maxamed Nuur Galaal oo maanta ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku tiriyay Soomaaliya hoggaankeeda loogu dhibo beelweynta isagoo shaaciyay sababta uu yiri arintaasi waxa uu sheegay in beelweynta ay ugu dad badan tahay buu yiri qowmiyadda Soomaaliyeed isla markaana ay haatan ku haboonaan lahayd buu yiri in hoggaaminta Soomaaliya loogu dambeesiyo buu yiri Hawiye sida uu hadalka u dhigay waxaana isagoo hadalkiisa sii watay General Galaal yiri waxaan fiirsanaan doonaa 30 ilaa 18 tirada u dhaxaysa marka dadka ugu badan waa Hawiyaha sharciguna waxa uu qabaa in tirada badan ay wax hogaamiso marka waa in Hawiyuhu hogaamiya Soomaalida ayuu yiri waxa uuna sheegay in beesha Hawiye la yiraahdo ay tiro iyo tayaba leedahay balse waayihii dambe ay wax ka jireen dhanka talada sida uu hadalka u dhigay inaan hormuud noqono Soomaali weyn oo xuquuqdeena raasano tii dadka kalena raadino wax ka yari nama deeqdo buu yiri waxaan soo jeedinayaa inaan Soomaali weyn ku raadino tiradeena iyo tayadeena intaba ayuu Galaal si raaciyay hadalkiisa General Galaal ayaana hadalkani waxa uu ka sheegay xilli maanta uu ka qayb galay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa shirka beelweynta isla markaasna ka soo qayb galeen dhammaanba odayaasha dhaqanka ee isla Hawiyaha wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cabdi Nuur ayaa maanta kulan kula yeeshay xafiiskiisa mas'uuliyiin ka socday dawladda Qatar Jaarito oo hogaaminaya wakiilka hay'adaas ee Soomaaliya mudane Cabdi Nuur Xaaji Cabdi Cali waxa ayna ka wada hadleen horumarinta biyaha dalka iyo arrimo kale oo ku saabsan
kulankan ayaa waxaa ka qayb gahaa wasiir dowlaha wasaaradda tamarta Marwo Shukri Maxamuud Afrax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Daahir Cabdi Cabdullaahi, agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Cabdiwaxiid Ibraahim Axmed, la taliyaha dhanka biyaha iyo haweenada wasaaradda tamarta. mas-uuliyiintan ugu sareysa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo hay'adda Qatar ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha horumarinta biyaha dalka iyo sidii ay u gacan buuxdo ugu geysan lahaayeen hay'adaha hirgelinta ceel biyoodyo laga qodayo goobo biyo tirada ay ka jiraan, iyadoona wasaaradda ay qaadayso doorkeeda ah in hagto goobaha laga fulinayo mashaariicda horumarinta biyaha. xubnaha ka socda hay'adda Qatar Jaarat ayaana aad ugu bogaadiyey kulanka ay la yeesheen madaxda wasaaradda tamarta, waxayna ku ammaaneen sida ay uga go'an tahay wax u qabashada dadka tabaaleysan ee u baahan in ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. kan hay'ad ahaana ay diyaar u yihiin inay raacaan qorshaha wasaaradda ugu degsan hirgelinta arrimaha la xiriira qodista ceele biyood, iyadoo tilmaamta ay wasaaraddu bixiso ay hay'addu ka howlgeli doonto ayaa lagu yiri. ugu dambeyn, daawadayaal, dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay maanta heshiiskii ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya, kaas oo ay maanta ku heshiiyeen wadamada Sacuudiga iyo Qatar oo muddo 3 sano ka badan xiriirkoodu ahaa mid go'an. waxa ayna horey cunaqabateen dhinac kasta lagu soo rogay dalka Qatar ay ku soo rogeen wadamada khaliijka ee ka mid tahay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain, kaasi oo xiriirka loogu jiro guud ahaanba Qatar kadib markii loogu eedeeyay inay taageerto argagixisada. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa guud ahaanba go'naa xiriirka dowladahan, iyadoona wadamada qaarkood lagu cadaadinayay in ay midkood raacaan labada go'aan ee ku aadan xiriirka dowladaha Qatar. dowladda Soomaaliya oo marar badan ay aad saameyn ugu leeyihiin dalalkani ayaa waxaa lagu cadaadinayay inay go'aan ka qaadato arrinta ku aadan khilaafka khaliijka, isla markaasna ay raacdo saddexdaas dal ama Qatar midkood. balse xukuumadda wasaare xasan cali kheyre oo markaasi joogta ayaa waxay qaadatay doorkeeda ah dhexdhexaadnimo, iyadoo sheegtay inaysan marnaba raacaynin go'aanka Sacuudiga, iyadoo sheegtay in doorkeedu uu yahay oo keliya dhexdhexaadnimo, ayna labada dhinac ka talin doonto sidii la isugu soo dhoweyn lahaa. balse arrintaasi waxaa aad uga xanaaqay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo markaasi saameyn xooggan ku lahaa Soomaaliya, isla markaasna sheegay in Soomaaliya laga doonayo in go'aanka ah dhexdhexaadnimada uusan u cuntameynin, isla markaasna ay doonayaan in go'aan cad ay ka soo saarto khilaafka khaliijka. balse dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa marar badan ku adkeysatay in doorkeeda go'aanka ee khilaafka khaliijka uu yahay dhexdhexaadnimo. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa aad u xumaaday xiriirka dowladaha Soomaaliya, Sacuudiga iyo weliba Imaaraadka, iyadoo Imaaraadku ugu dambeyntii sababay in xiriirkii guud ahaan uu Soomaaliya lahaa u noqdo mid go'a kadib markii ay si toos ah isugu dhaceen dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. dowladda Qatar ayaana wixii intaasi ka dambeeyey waxay taageero buuxda u muujisay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu booqashooyin kala duwan ku tagay magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. sidoo kale wasaare xasan cali kheyre oo markaasi ahaa wasaaraha dalka ayaa isagana booqashooyin ku tagay dowladda dalkaasi Qatar. wixii intaasi ka dambeeyey dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in doorkeedu uu yahay oo keliya dhexdhexaadnimo. ugu dambeyn, maanta dalalkan waxay ku heshiiyeen in xiriirkooda dib loo soo celiyay, isla markaasna wixii jiray ee khilaafaad ee labada dhinac ahaana la wada xaliyo. taasi ayaana waxay ugu dambeyntii keentay in dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya lagu ammaano doorkoodii ahaa dhexdhexaadnimo, maadaama aysan ku dhicin halistii dabinta dhanka siyaasadeed ee ay u dhigtay ay ku jireen aan dhehe wadamada khaliijka ee markaasi. madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana lagu bogaadinayaa go'aankii uu qaatay markaasi oo ku aadan dhexdhexaadnimada, isla markaasna ay maanta u noqotay guul weyn u soo hoyay dhanka wasaaradda arrimaha dibadda, gaar ahaan xiriirka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya la leedahay wadamada khaliijka. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.